بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعمر حسن بولة وحنا هاي كاميرمان كترسن تلفزيون كتصمو حرونتي مقالة المقدشو قول وحان قاري isgoyska Taraboonka halkaas uu ka dhacay qarax sida la sheegay laba bartilmaameedsaday General Odawa goobta inta markaan tagay anoona wax baduuban qalabkeedii gacantan ku siitay waxa ay imaaday ciidamo ka tirsan kuwa saldhiga hodan anoona ii weydiinin waxa ahay iyo inaan wax duwa in kale qorbaadkiisa ila dhaceen kaameradana si xoog oo qasab iga qaadeen iyagoo waliba ay kala tuuray oo dhulka ugu waday marka arintaas waxaan leeyahay maamulka degmada hodan ciidamadiisa ay ula kaceen ma wanaagsaneen waxaan dalban lahaa in qalabkeygii laga qaatay oo aan ku shaqeysan lahaa in maamulka degmada hodan maadaama ciidankooda ay iga qaadeen in si degdeg ah la ii soo celiyo sidoo kale waxaan baaq u dirayaa hay'adaha madaxa bannaan ee warbaahinta iyagana in ay ka jawaabaan dhacdadan keligay maahan dhowr wariyaal la xiray oo sidaa oo kale qalabkooda laga qaaday la jirdilay ciidamada saldhigga degmada hodan ayaan arrintaas sameeyay marka waxaan dalban lahayn in si degdeg ah cadaalad aan u helno